midnimo madeedu jamaashiyo unoytaaday la joogin anjelbaan u qabe mahad ballaaran baan idiin celinaynaa annagu waa idiin nimid saddexdaan casho u dambaysay waxaan ku sugnay saad la socotaan gobolka degmada Luuq baan ka soo bilownay socdaalkaygana ma aha mid meel laba ku kooban waxaan rabnaa dhammaan inaan marna degmooyinka gobolka kadibna aan xarunta gobolka Garbaari fiirsano halkaasna aan ku falanqeyno sida gobolkan uu noqon lahaa hay'ad dawli ah oo isku xiran oo hay'adaha dastuurka Soomaaliyeed ka shaqeynayaan oo maamul iyo amni garsoor cadaalad iyo siyaasad baa isu raaci lahayn si bulshada loogu adeego waxaan go'aansanay horena ugu baaqnay inaan noqono dad wada guulaysta dadkaan kala aragtiyadisnayn muddada dheer intaad halkan joogto iyo inta magaalada joogto inaan la fariisanno qof walba sharaftiisa iyo maqaamkiisa aan ku tixgelinno aan wada hadalno aan noqonno ummad israacday wada guulaysatay ee aanan noqonin ummad qaarna laga guulaystay qaarna guulaysatay runtii sidaas ayaan rabnaa si dhab ah inaan ugu hirgelinno laakiin waxaan rabnaa laba inaan kala saarno geda iyo maamulkeeda iyo horumarkeeda iyo amnigeeda iyo cadaaladdeeda say u shaqayn lahayd iyo dadka siyaasadda ku tartamaya oo ka dhaxayso garoonkay kubadda ku wada ciyaari lahayn labadaas inaan kala bedelnaan rabnaa garoonka kubadda siyaasadda lagu ciyaaraya inay noqoto xarunta dowlad goboleedka Jubbaland oo lagu tartamayo hoggaanka Jubbaland iyo xildhibaanada iyo wax walba loo tartamayo gobolkan uu noqdo gobol maamul iyo amni iyo cadaaladba ismatalo oo wadada horumarkii adeegga bulshada ku heli kara qaado oo aan isku qasin baan rabnaa waa sida dunyadan u shaqayso weeye bini'aadamku waa kala aragtidiisan yahay waxa aan hayno maanta matalaynana waa waxay naga dhexeeyo qof walbana waqti buu leeyahay waqtigiisa lagula shaqeeyo lagu dhaliilo marka waqtigiisa dhammaadana lala tartamo qof ilaahay ku guuleeyaan lala shaqeeyo waddadaasaa la maraa marka gobolkeenna wuxuu aad iyo aad dib ugu dhacay arrimaha aan loo fadhinin oo shuruucda dalkan u degsan aan waafaqsanayn arrintaa cadowga baa ka faa'iiday bulshadaannu soo aragnay ama haddaan arkayno kama faa'iiday sababtoo ah waxaa la isku qasay labadii waddaa la isku qasay inaan kala saarno odayaasha uu guddoomiyaha xusay oo magaalada jooga waa booqanaynaa waa la fariisanaynaa waxaanu isku hal doon baan wada raacaynaa haddii ilaah yidhaah waa xilli aadna soo dhaweyseen oo maanta mahadcelin mudan ajendayaashii qorshaha la soo safarnayna aan rabna inaan la wadaagno amniga iyo maamulka iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada iyo siyaasiyiinta naga aragtida gedisan oo magaalada ku sugan waqti fiican baanu helaynaa allah idin ciseeyo annaga waa waddankayay waa deegaankayay waa meeshii aanu u dhimannay u dhalannay waqti gelinay laakiin waxaa la yidhahdaa rag baa ku raggeeda maanta idinkaa joogisaad nagu soo dhaweysaan waa idinkiin mahadcelinaynaa